kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaan naga daawanaysaan waa Boundless Media. wararkan maanta idinkugu hadna qodobadiisana waxaa ka mid ah Cumar Finish oo xilalkii ka qaaday gudoomiyayaal degmo, Farmaajo oo heshiis ka dalbaday Wasaare Roble, kursiga xeef iyo qeybdiid oo ka mid noqday kuraasta dib loo dhigay iyo sababta Taliban oo qabsatay magaaladii sagaalaad ee Afghanistan. daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa dib u dhigay shaacinta musharaxiinta labada kursi oo ka mid ah 8 xubnood oo maamulkaasi ku lahaa aqalka sare ee Soomaaliya. Qorqor ayaa ku dhawaaqay liiska 6 ka mid ah kuraasta oo ay ku tartami doonaan ilaa 12 musharax. labada kursi ee dhiman ayaa waxaa haatan ku fadhiya Senator Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid iyo sidoo kale Senator Cabdiwaaxid Cilmi oo loo yaqaan Gonjeex. wararka ayaa sheegay in sababta ugu weyn ee dib loogu dhigay labada kursi ay tahay in wali isku dhagan yahay isla markaana uu Qorqor wada tashiyo ku aadan kuraas si xal looga gaaro murka ka taagan loona kala saaro musharaxiinta. kursi ka mid ah labada kursi waxaa ku hardamaya madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xeef oo horey digniin culus ugu jeediyay iyo Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid oo haatan ku sugan jidda hore ee dagaalka isagoo oo doonaya inuu difaacdo kursigiisa. wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Galmudug laguna shaacin xilliga rasmiga ah ee lagu dhawaaqi doono musharaxiinta kuraastaasi oo ka mid ah kuwa ugu saameynta badan marka loo eego 8 kursi ee taala magaalada Dhuusamareeb. dhinaca kale waxaa kursigiisa waayay gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee aqalka sare mudane Abshir Maxamed Axmed Bukhari kadib markii laga reebay liiska musharaxiinta. waxaase lagu soo daray 3 ka mid ah xubnaha aqalka sare iminka kuwaasi oo kale ah Cabdi Axmed Duxulow Dhagdheer, Yuusuf Geele Ugaas iyo Zamzam Daahir Maxamed. Bukhari ayaa ka mid ahaa senatarada mucaaradka ah ee sida weyn uga soo horjeeday Villa Soomaaliya, wuxuuna sidoo kale la safnaa gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli midooyinkii la soo dhaafay aad loo hadalhayay muranka ka taagan kuraasta qaar ka mid ah kuraasta qaar ee Galmudug, waana midii dhalisay in Qorqor uu la soo daaho liiska xubnaha musharaxiinta ee ku tartamaysa kuraasta Galmudug ee golaha aqalka sare. wareedyo kala duwan ayaa Boundless Media u xaqiijiyeen in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo heshiis ka dalbaday wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kadib khilaaf culus oo soo kala dhaxgalay labada mas'uul. madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu xiriir la sameeyay Roble kadib markii uu ka jawaabay warqadii dhawaan ka soo baxday xafiiska madaxweynaha kana dalbaday inay xiisada dajiyaan. Farmaajo ayaa la sheegay inuusan filaynin jawaabtii uu Roble bixiyay dhiiranaantiisa, taasi oo walaac ku abuurtay. waxaa lagu waramayaa in uu ka cabsi qaba in haddii ay sii socoto xiisada uu Roble qaadi karo tilaabooyin ay ka mid yihiin inuu xilalka ka qaado taliyayaasha ciidamada bedelana wasiirada ku dhow Farmaajo isla markaana ku sii dhawaado xubnaha mucaaradka. sidoo kale Wasaare Roble ayaa la sheegay inuusan weli u jawaabin Farmaajo, waxaana wararku sheegayaan inuu cabsi weyn ka qabo Villa Soomaaliya isla markaana uu aaminsan yahay in dalabka heshiiska uusan daacad ka ahayn. xog aynu helayna ayaa tilmaamaya in Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu bilaabay inuu digniin u jeediyo dhammaan shakhsiyaadka ku dhow madaxweyne Farmaajo iyo taliyayaasha ciidamada isla markaana uu madaxweynaha dareemay in culeys badani saaran yahay kaasi oo wax u dhimi kara rajadiisa doorashada ee Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay ayaa soo warinayaan in Wasaare Roble uusan weli aqbalin dalabkaasi isla markaana uu jawaab ka bixin doono markii uu ka soo laabto dalka Kenya oo shalay ugu bilaabatay booqasho rasmi ah, taasi oo qayb ka ah waxyaabihii ay isku fahmi waayeen isaga iyo madaxweyne Farmaajo. haatan gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamed Maxamuud Finish ayaa maanta xilka ka qaaday 4 gudoomiye degmo kadib wareegto ka soo baxday xafiiskiisa. gudoomiyaasha xilalka laga qaaday ayaa kala ah gudoomiyaha degmada Xamarweyne Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir, gudoomiyaha Kaaraan Abshir Kaaraan, gudoomiyaha Waaberi Cabdicasiis Cismaan Jaamac, gudoomiyaha Hilwaa Cabdilxakiim Cumar Cabdullaahi. sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa gudoomiyaha cusub ee maamulka degmada Hilwaa u magacaabay Mire Salaad Duxulow, halka kusimayaal gudoomiyaal loo magacaabay degmooyinka kale ee Xamarweyne, Kaaraan iyo Waaberi ee gobolka Banaadir. xilka gudoomiyaha Xamarweyne ayaa waxaa sii hayn doona Maxamed Axmed Iidow oo ah ku-xigeenka dhinaca amniga
ee degmadaasi sidoo kalena waxaa si kumeel gaar ah xilka gudoomiyaha waa beri lagu magacaabay Jamaal Cali Maxamed isna ah ku-xigeenkii amniga degmada halkaasi oo Karaan oo kusimo looga dhigay Deeq Xasan Sheekhow oo ah gudoomiyihii ku-xigeenkii amniga ee degmadaasi. Tilaabada xilka qaadista ee uu qaaday Cumar Finish ayaa ahayd mid la filayay isla markaana si aad ah looga hadalhayay baraha bulshada. Taliban ayaa lagu soo waramayaa in 5 cisho gudahooda ay ku qabsatay magaaladii sagaalaad oo ah caasimad goboleed. Magaalooyinka ay kooxda la wareegaysay tan iyo Jimcihii, Taliban ayaa gacanta ku dhigtay maanta magaalada Wazibat ee gobolka Badqashaan. Xildhibaan lagu magacaabo Zabihullah Attaqi ayaa wakaalada wararka AFP u sheegay in ciidamada ammaanka ay dib uga gurteen magaaladaasi kadib iskahorimaadyo xooggan oo socday maalimo. Waxa ay sidoo kale gacanta ku dhigeen gilinkii dambe ee shalay magaalooyinka Faraha iyo Paula Khamiri oo ku yaala koonfurta goboleedka iyo gobolka waqooyiga Bakhlaan. Shahala Abubar oo xubin ka ah golaha Faraha ayaa warbaahinta u sheegtay in kooxda ay la wareegtay xafiiska duqa magaaladaasi iyo xurintii dhexe ee ciidamada booliska. Xildhibaan lagu magacaabo Cabdul Nasri Farihi ayaa isna laga soo xigtay in kooxda ay sidoo kale qabsatay xisbiga bartamaha magaalada ee Faraha. Daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa war wixii dalka iyo dafaha caalamka idinkaga hayay. Warka waxaa idiin akhrinaya oo idiin soo saaray aniga Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar. Intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah.